أحمد كبردي أدونت مركو جري ولا علي أنيقا وهي أدونت إنه كجوسدو أنا ليك سجايا لكن أنيقا جورك هاي ديار أمي محي أوج جبابتي وحي أوج جبابتي وحي تري هدات جورك ديار وهاني تري أنا ربيت إني جوستي أدرسيت القتيب يعني فرانت جلس كان أنا الباب وبحدي تري أنا جوسنين وجوي تري وسوري تري أنا إيشان قني عجيه جوستي سايمانه وهندات عديا عجيه جوستي سايمانه سا نين كان ورك هذه ما أوصل لجيسن فجو يجري مركي حوالي جو هو يسوي حجري كبر أس يقول بكو ما قناع سنين مت كلا أنا عن جعلستي أنكو قدر أنكو رادنا كبدي راسين كبدي الهشين غير كده الهشين وجوسي markay gurigooda ay wada tageen Axmed gabadhii u guursaday ee cusbeed markuu wajigeeda fiiriyo bahalay ku noqotaa a'uuzu billahi min shaytaan rajim subhanallah bahalay ku noqotaa sida wax waara amal u qaylna kadib arintiisi inta ku dambeys qisada dhameystiran bal aan wada dhageysanay nakiciya Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta qiso waxaan idin wadaa mataqaanaa dadka qaarkood subxaanallah in allah jiro subxaanahu wa tacaala maxay ahayd toole qofka hadduu ilaahay wuxuusan raali ka ahayn uu ku kaco mase sixir ha ku kaco mase wuxuusan allah raali ka ahayn dhan oo dhan ha ku kaco inay sugayso qabriga 2 mitir ah ma oga miyaa ma ogi dadka qaarkood waxa iska yaabaysa adduunka marka si dhigeysto waxa leedahay dadka xumaanta ku kacmasa xumaanta sameynaya subhanallah toobad alla way furantahay toobo ma dhahay rabaa miyaa ku dhimarwaan subhanallah ilaahay wa nafsahaadin qisadan waxay ku socotaa wiil leeyahay Axmed waa dhalinyaro waa wiil wax bartay jaamacad dhameeyay shaqeysto oo rabo inuu guursado gabadh oo arkooday ayuu wuxuu leeyahay gabadha maane reer kala miicada gabadhii markuu xaafadii wareystay waxa la gabadhan iyo reerkoodii ka leexo waruma u soo maqlin hooyadiis u geey hooyadiis waxay tiri gabadhan iyo reerkoodii wax fiican laga ma sheegnay ma dhow ka leexo wuxuu yiri may ayada le ii cad ina madow gabadhii nacay u janjeeray adiga hooyo way qasbantaa wiilkeedu wuxuu rabo inaan la rabaato بس كراسي والله دوني قبلي ولا سوسي لكن ولي جوركوز ما دعم أحمد وحو دريمي هدو شقيكم يا غيركو كشوا هذا الكوضة حوليه طبعا وطاعا يعني إذن كلاجتين وحوال بيشيغان هيجي وهي أصار في سيدي الصلاة وخص لاي سيحو جران ماشان وحباب جراني محاجرو أحمد أصابو يابن ayuu go'aan ku gaaray maanta dambeeto gabadhan inuu sideeda isaga haro iska dhaafo wiisoo tashbiix u yiri hooyo gabadhan waxaan rabaa inaan iska dhaafo wiisoo waxay tiri ma dhow xaq Allah u rabbi ilaahay xaqiisa u dhawow amaanta istiqaarta badi oo salaada badi maxaa yeelay tiri ciidan waxa laga sheegay falfala laga sheegay sixir laga sheegay waa reer iyagana ma sixir ku adeegtaa lahayd ma dhow saasan ku dhilaha adaa ilaan faraha laga sheegay هيو يجري إلى اتصال دوادي أحمد استغفرت يا بضي الحمد لله وحو وقاده وهو بريء كوان إنه سب مناسب يعني مناسب كأهم له وتجو حجر أباي أنا جا حنديارو هاي إنها قطوبة يعني فرانت جلس كني عن جوجيو جورد من أوصل بين إلهي نوال بن هرتيس خير الله عليكم جوابت السوحة هاي أحمد يترى اسكودين إنها ترى كم جورسنا هذا اسكو ديرت واسو وري عاجهيغا هوستيسا imaanay ana la isoo noqonay taas dhigaaga fur oo giliyay du fi shay la taxal kuma guursanay inuu kala wado yiro ka soo tagay Axmed hooyadiis waxay tiri gabar ayaan hooyo soo arkooday wareerkooda fiican gabadhaas aan kula jeclaa gabadha guursanay hayuu yiri reerkay gabadha ka doonteen reerkay arooska ku heshiiyeen wixii la dhameeyay Axmed arooska loo sameeyay wuu guursaday برابلامك يا لي أحمد كوسو كرد أي واحد هاي مركي جورجي جوادي سوقو تجين هرت جوادي وحلا نقطة بحال سبحان الله وجي جاد مركو في شو بلا آدم معهم بحال وأركويا وقيلنا حسنا عم موالي مفيوي محول قيلنا ويد الجسة هيكو سوادواني ولي حسنا عم حاكي قلدم أساس ليا بناك مركو بحول في عين مركو جورجي سوى قلوا جوادي أكتادي ماذا
waxay wala naqataa bahal balaay kala dusha ka soo korto barnaamijka markuu u baxo marka tasto wuxuu yiri ninkan wuxuu yiri kaalay adiga maxaa ka qaldan hadalkii gabadhii diiday inuu guursado ayuu soo xasuustay wuxuu yiri yaa ma balaytan ku qoostay waa balaaya ku haysatay wuxuu maxaa samaysaa adiga hooyadiisa waxay tiri maandhow sheekh aan ku geey dhib hadaa sheeganaysid wuxuu yiri hooyo dhib meel baan ka qabaa dhib wuxuu yiri xagga reegnimada dila fish dhibaan ka qabaa oo waa yaaban uu yiri wax igu dhacda dhakhtar tagan waxa la yiri saliima tahay wuxuu yiri gabadhii hadaa u tago bahal ay igu noqonaysaa hooyo maxaa sameeyaa waxay tiri sheekha jiro sheekhasan ku geeyna in lagu sixraa laga yaabaa reerkaas awlay sixir ifalfal yaqaanin maandhow lagu quraan lagu saaro hayuu yiri haye markuu yiri maalintii uu sugaysay hooyadiis inay iska kaxayso isla tagaan meeshii wuxuu arkay reerkan oo soo socdo reerka isha ma saare waaba diiday sheekh inuu tago wuxuu yiri sheekh uma socdo gabadha uu qabiyaa waxay tiri axmed waa ku baryayaa sheekh aan ku geeyo aan ku garab galo oo ku dareemi karaa dhibaatad sheeganaysa isbitaalku asal tagnay axmed oo ku garab qabto wuxuu yiri ma jirto ma jirto oo joogo markuu banaanka u baxay ay wuxuu xasuustay oo qalbti soo noqotay yani in markuu guriga galane oo si kala naqana markuu banaanka joogo nadiif noqonay go'aan wuxuu ku gaaray gabadhan wixii jiro inuu sheego wuxuu yiri gabadhan intuu yimid wuxuu yiri gabadhii aan rabay inaan isguursano ee hadda ka hor aan aadayo soo faraanta galiyay gabadhii marka ay rooyay kuma guursanayo jawaabta isiis waxay ahayd yiri axmed ma ka joogtid hadaa diidid ogow soo socdo soo wareegis ageego si imaanaysa ayada xageeda laga haysta ee way sabax sheeqan islaamna sabax masaajid aan tagnay sabax lagu soo quraan saaray wuxuu yiri may adigu maalinta waa ka diraya waa qaylo waa dagaal waa dil gacan oo taaga xataa gacan oo keeni waa qaylinaya waa dagaalamaya habeen ma hooyado maalin hirgalo adigu qaylaas ku jira gabadhan waxay tiri aniga rafaad adduunyan ku qabaahay maxaan sameeyaa maanta waxay tiri axmed saan iska sayidi kartaa dil markaa waxay aroostay reerkooda waxay tiri ninkan nin fiyo ma ahnayt nin fiyo ma nin la maray waa reerka waxay dhaheen khalaas axmed aa tahay dhibka ku haysto adila ku qoobnaadaan anaga yana soo gaarin ma fahanti reerkaas adaa faraha awalba la gashay saa sheegaysa reerkaasna reer laga yaqaan waa magaaladan marka haddii iyo dan anaga gabadheen soo fur sidii gabadhi ku fur ha furo muxuma gabadhii axmed habeen ma joogi karo maalin hirgeli karo ma hooyan karo hooyadiis waxay tiri quraan ku saar woo diiday shaqan ku geey woo diiday meel walba lagu geey woo diiday axmed soo maalmo dhan guriga uu jiro wuxuu go'aan ku gaaray gabadhii inuu ku noqdo gabadhii waxay ahlan wa sahlan ayir gabadhii ku noqday woo kursaday hooyadiis oo ogeen hooyadiis uma soo sheegin guurkiisa iska galay gurigoo galay hooyadiis haddana bahal looga dhigay hooyadiis markay u tagto istiraadaba wiilkaaga tag oo soo aragbo bahalo moodaa qaylo iyo isku daraaya iga taag iga bax hay iimaan isoo dhawaan subhanallah axmed qasiis waxay ku soo gabagabowday in reerkaas uu ahaanayo subhanallah yani xayawaan ay soo gateen camal maxaa yeelay dilda fariisana haliri hadii la kacno kacaya haliri hadii la socon yani fal aan caadi ahayn ay kula kaceen hooyadiis soo oynays ogin waa ka dhamaatay waxay wacday hooyadiis gabadhii oo kala tagi jireen waxay tiri gabadheedii war fiicanaa tahay weli axmedna waa jeceshahay anna waa ku jeclahay adiga anigana wiilkayga waa jeclahay waa ogtahay axmed fariyayga waa ka baxay waa ku baryayaa sheekh ila aad gabadhan saan wiilkan saan ugu qabano israacno garab gal xataa guriga igula tag reerkeed waxay dhaheen may haddaad rabinaytid haddii inaad sidii axmed loo waalay ugu waala aad rabtid aad haddii aadan rabin oo saliim rabtid inaad ku ahaatin reerkan faraha kala bax ilaahay baa markaa soo baxshay mar labaad ku noqon way ku soo celisay waxay tiri waxay dhahday maamada wuxuu u sheegtay karaal noqo way macaani ani kuma raaci karo wiilkaaga faa'iidaysan ma geli karo waxa ugu weyn oo wataa hawsha tadan galane anigu reerkayga inay soo gaaraan bas aan dib inay soo gaaraan diyaar uma ihi iga raal noqo hasa lagu deeriyay axmed waxay noqotay marka reerka inuu adoon camal u ahaa subhanallah allah ka soo furfuro illa al'aana waxa la leeyahay qisidiisa wili waa sidiisi waxa ka sheekeeyay qof kale kama sheekeeyay qisidiisi gabadha ay kala tageen ayaa qisiis ka sheekeysay illa billah illa dhamaad illa al'aan waxay taagan tahay reerkaas oo wuxuu u yahay adoon tay ka yiraan waa kaca haday fariisiraan oo fariistaa hooyadiisna meel uu ku ogyahay ma jirto annaga soo fiirno aan ogaanaa meel uu ku ogyahay male kaligeed
سكلجيس لنا قبطاو المكلة ما قبطو سبحان الله ما إلهي لك عبسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر اللهم نجينا سبحان الله إلهنا يقبل قصة ما أنت سوف أكاد إن شاء الله قصة لمده شيرتنا اللي بنا لايك سيدو قلاتي سبسكرايب نوحواي أول واي إذا أهريسو قنبليل كان فرطة سيدي إنسو قارو قصة والبو أنسو قري إن شاء الله قصة لمده حاني كي تقايا نبت قليو السلام عليكم